gabadhan ay waxay saarantaa taawar dhererkiisa gaara 600 mitir xitaa kaligeed maahan ayadii gabadhan kale ay isla socdaan labadoodana waxay rabaan naftooda inay badbaadsadaan marka hore meeshan soo fuuleen uma maleynayaan sida inay ku dhacayso adigana daawada ilaahay muuqaalkana laakiin oo saarto markaas waxay bilaabaysaa inay biyo cabto si meeshan u soo fuusho gabadhan kale waxay ku qeelinaysaa kaali meesha soo fuur meesha u taagantahay ay ku dhaysaa marabin oo wala celinaysaa ayadana ma taqaan qaab loo fuulo markaas ay fikiraysaa waliban ayadoo isdhaysa meeshan ma boorsada saarti kadib waxay bilaabaysaa boorsadii meesha isku xiraysaa si meeshaas kale u fuusho oo xirgan u qabsato ugu dambeyn ay isku dhijinaysaa hamar ay soo boos oo meesha ay qabsanaysaa si kor u fuusho gabadhan kale waxay sameynaysaa saaxiibadeed ama walaasheed ay jiidaysaa si ay kor u soo saarto nafteeda ay u badbaadiso markaas aydan waxay sameynaysaa xirga ay soo jiidaysaa si ay u badbaadiso aydan xirga si fuulaysaa sababtoo labadaba is caawinaya mar kale adeegana daawada ilaahay muuqaalkana laakiin oo saarto balse si lama filaan marka meesha dhawaad xirga la sii fakanaya way soo taraaraxaysaa bahal mar gabadha kale markaan waxay dareemaysaa murugo aad u far badan ayadoo ku murgiis walaasheeda meeska si dhacaysa markaas ay ku dhaysaa aniga waa noolahay kaliya caawi xirga waa inaad si jiida aydan waxay ku dhaysaa okay diyaar waan jiidaya waxayna bilaabaysaa xirga inay jiido in caawiso walaasheeda si ayadoo caawisan wax walba ay u sameynaysaa xirgan xoolkii u soo jiidaysaa ilaa ay ugu dambeyn meesha ay ka soo saarto walaasheeda adeegana daawada ilaahay muuqaalkana laakiin oo saarto ugu dambeyn gabadh meesha soo fuulaysaa